Assalaamu calaykum asxaabta ku soo dhowaada channelkeena iftiinshe maanta waxaan sharixi doonaa filim science fiction psychological ah oo lagu magacaabo Circle soo dhowaada bilowga filimka iftiin daciif ah ayaa inoo muujinaya dad kooma ku wada jira oo u taagan qaab wareega waxaa si kadis ah u soo miiraabaysa gabar yar oo dadkii ka mid a way dhawaaqaysaa balse cidna uma jawaabayso waxa ay isku dayaysaa inay hore u dhaqaaqdo balse alarmi digniin ah ayaa ku qaylinaya waxaanay arkaysaa inay ku taagan tahay goobo cas waxa ay isku dayaysaa in ay taabato askarigii garabkeeda taagnaa balse haddana alaamkii ayaa ku dhawaaqaya gacanteedana waxaa ka muuqda iftiin goobo ah nin taagan koonaha kale ee qolka ayaa u sheegaya inay dhaqdhaqaaqa joojiso isaga oo u sheegaya in la arkayo oo lala socdo waxa ay sii weydiinaysaa su'aalo balse waxa uu ugu jawaabayaa malihiisa gabar kale ayaa soo toosaysa iyada oo khalkhalsan ninkii ayaana isku dayaya inuu dejiyo balse goobadii ayay ka dhaqaaqaysaa maayadanabeed elektriga ayaana ka soo tooganaysa goobo kale oo dadka dhexdooda ku taalla oo dilaysa nalkii ayaa mar kaliya wada daarmaya dadkiina waa ay soo wada toosayaan isla markiibana hal nin ayaa dhimanaya ninkii u soo hortoosay ayaa u sheegaya in qof waliba halkiisa taagnaado dhaqdhaqaaqana ay joojiyaan oo aanu qofna qof kale taaban isaga oo ninka booliska ahina iska raadinaya baaskooladiisii dhawaaq digniin ah ayaa la maqlaya ninkii la dilay ayaana la jiidanaya iyada oo ay gacantiisa iftiinkii goobadaha ka sii damayo dhawaaqii alamka ayaa sii soconaya fallaadh iftiimaysa ayaana wareegaysa danabkii elektrig ahaa ayaa isna bilaabmaya waxaanay dilaysaa ninkii ugu horreeyey ee koomada ka soo kacay waxa ay dareemayaan cabsi hor leh wiilka koofiyadda gashan ayaa isna ogaanaya inuu kaantaroolayo fallaarta hortiisa wareegaysa fallaartii gabar ayay hor istaagaysaa korontadii ayaana dilaysa marka ay isweydiiyaan sida ay wax u jiraanna waxa uu u sheegayaa bal inay fiiriyaan in iyagu ay hagi karaan fallaarta hortooda ka muuqata qof kastaana waa uu tijaabinaya iyaga oo raacaya tilmaamihiisa waxaanay ogaanayaan in qof waliba uu arki karo oo keliya fallaarta uu kaantaroolo wiilkii koofiyadda gashanaha ayaa tilmaamaya in ay iyagu dooranayaan kolba qofka la dilayo wareegii fallaarta ayaa bilaabmaya oo qof kale ayaa dhimanaya haddana dib ayay u soo bilaamaysaa iyadoo gabadhii uurka lahayd isku dayaysa inay fahanto sida ay wax u dhacayaan danabkii korontada ahaa ayaa haddana dilaya qof kale waxaanay u sheegaysaa in ay sax tahay oo ay iyagu u codaynayaan waxaanay tilmaamaysaa in uu dhimanayo qofka dadka badani doortaan iyaga oo marka fallaadhu ku beegan tahay gacantooda xidhaya qof ka mida ayaa soo jeedinaya in ay u wada codeeyaan boosaska dadkii hore u dhintay waanay ku heshiinayaan iyada oo fallaartii soo wareegaysa mar kale marka ay istaagtana qof kale ayaa dhimanaya iyadoon loo eegin codkoodii marka kale ee uu wareegu soo bilaabmo waxa ay isku dayayaan in aanu qofna codaynin balse fallaarihii oo dhan ayaa wada iftiimaya oo haddana qof kale ayaa la dilaya wiilka gashan funaanada cad ayaa soo jeedinaya in la ismaqlo oo ay xal raadiyaan si ay u darsaan xaaladan oo ay u joojiyaan waxaan dhacaya waxaanu ku talinayaa in ay laayaan dadka da'da weyn leh wiilkii koofiyadda oo keliya ayaana ku raacaya arrinka wiilkii funaanada cadda ayaa sheegaya in ay ka bilaabaan odaygan garabkiisa taagan sidaasna ay midigta uga sii wadaan gabadhii uurka lahayd ayaa kasoo horjeesanaysa arrinka balse qof fikir dhaamahaya ayaan jirinba fallaartii ayaa soo wareegaysa odaygii u horreeyey ee daad ahaa ayaana sii baryootamaya laakiin danabkii korontada ahaa ayaa la tegaya maadaama intoodii badnayd ay ku raaceen nidaamka wiilkii funaanada cadda waxa ay isku dayayaan in ay fahmaan waxaan meesha ka socda waxa ay waraysanayaan ninka askariga iyaga oo filaya in uu bal wax uun ka og yahay oo alien iyo wax la mid ah ay ku soo duuleen laakiin isna waa la mid oo sidooda ayuunbuu yaaban yahay nin gadaal taagan ayaa sheegaya wixii u dambeeyey ee uu xasuusto ka hor intaanu halkan ka soo toosin wuxuu xasuustaa isaga oo ku xaniban wadada oo jaama kadibna ay baabuurta ka yaacayaan dadku intaanu dhulku wada madow noqonin dhowr qof oo kale ayaa sheegaya inay intaas iyana xasuustaan fallaartii ayaa haddana soo wareegaysa waxaanay u codaynayaan qofkii labaad ee ugu ninkii wuxuu kale oo uu xasuustaa iyada oo markab cireed ama spaceship uu kor u jiidanayo wuxuu kale oo xasuustaa isaga oo jiifo qol wada cas dad uu u malaynayay inay meyd yihiinna ay yaalaan laakiin uu imika ogaaday in ay noolaayeen laakiin la suuxiyey qofkii saddexaad ee da ah ayaanay u codaynayaan iyagoo wada hadalkoodii sii wata qofkii afraad ee ugu da'da weynaa ayaa isna sheegaya inuu xasuusto laga yaabo inay aliens ama noolo shisheeye ahaayeen sida ay u hadlayeen iyo sida ay u ekaayeen balse qaar ka mida dadku ma rumaysanayaan oo waxa ay u malaynayaan inuu been u sheegayo si uu naftiisa u badbaadiyo waana la dilaya wiilkii koofiyadda gashana ayaa dadka weydiinaya qofka uu noqonayo qofka laynka ku xiga ee da'da ah ee la dili doono waxa ay tilmaamayaan gabadha koofiyadda gashan iyaga oo
sii weydiinaya inta ay tahay da'deedu. Waxa ay u sheegaysaa in ay tahay 52 jir, taas oo beddelaysa ra'yiga qaar ka mid ah. Waxa kale oo ay sheegaysaa in ay qabto kansar, laakiin ay ka adkaatay oo ay bogsasho ku jirto. Wiilkii funaanadda cadda ayaa weli u malaynaya maadaama laga yaabo inay dadka kale ka hor dhimato in iyada loo codeeyo. Gabadh dhakhtar ah ayaa soo dhex galaysa oo sheegaysa in aanay dadka uga dhoweyn geerida oo ay bogsashada kansarku tahay wax jira, iyadoo oo wiilkii funaanadda cadda uu odhanayo kol haddii ay 50 sano ka weyn tahay waa in iyada lagu xigsiiyo. Balse dadka qaar ka mid ah ayaa ku khilaafaya arrinkaas, iyaga oo isweydiinaya sida hadhow da'da weyn iyo midda yar lagu kala go'aamin doono. Wuxuuse isku dayayaa inuu ku qanciyo xeeladiisa, balse waxba tari mayso oo isaga ayay tuurayaan markan. Gabadhii kansarka qabtay ayaa soo jeedinaysa in ay isweydiiyaan sababta intoodan loogu soo doortay in ay isku wareegan ku jiraan. Qaar ka mid ah ayaa u malaynaya in ay tahay bakhtiyaa nasiib, balse waxa ay soo jeedinaysaa in ay horta isku dayaan in ay shakhsiyan si fiican isku ogaadaan. Gabadh isku magacaabaysa Beth ayaana ugu horreynaysa oo ka warramaysa nolosheeda, balse iyadoo hadalkii wada ayaa waxa soo bilaamaysa fallaartii wareegaysay, iyadii ayaanay dilayaan. Balse badankoodu markan waxa ay soo jeedinayaan inaanay magacyadooda sheegin oo aanay muhiim ahayn, iyaga oo weli cabsi ka muujinaya inay xogtooda isla wadaagaan, maadaama ay gabadhii Beth ku doorteen inay dhahday carruur melihi. Waxa ku xigaya nin intuu iloobay in aan magacyada la sheegayn isku magacaabaya Craig, isaga oo sheegaya in gabadhan ku xigta ay tahay xaaskiisa. Qof ayaa dadkii weydiinaya in ay jirto cid kale oo aqoon isku lahi. Nin xagga dambe taagan ayaa sheegaya inuu garanayo gabadha dhakhtarka ah, iyaga oo labadooduba sheegaya inaanay jeclayn in ay sheegaan aqoonta ka dhaxaysa, laakiin ay isgaranayaan. Craig ayaa sii hadlaya isagoo dadka ka baryaya in haddii ay doonaan ay isaga dilaan, laakiin ay xaaskiisa u badbaadiyaan. Fallaartii wareegaysay ayaa bilaamaysa, qof kale ayayna ka tuurayaan meesha. Marka xiga, ninka Laatiiniga ah ayay ka codsanayaan inuu hadlo, balse luuqadda Ingiriisida ma fahmayo. Gabadha gadaashiisa taagan ayaana odhanaysa aniga u turjumaya oo Isbaanishka aqaana. Waxa ay weydiinaysaa qoyskiisa, waxaana uu sheegayaa inuu leeyahay 3 gabdhood oo Mexico u degan. Ninka tayga ama garawaatiga caskashan ayaa sheekada soo gelaya, isaga oo ka hadlaya qaxoontiga iyo soo galootiga sharci darrada ah ee Maraykanka. Balse ninka gacanta go'an ayaa weydiinaya in green card loo baahan yahay si ay noola shisheeye ama aliens ku afduubtaan iyo in kale. Waxayse ka codsanayaan gabadhii turjumaanka ahayd in ay weydiiso inuu Maraykanka sharci ku joogay iyo in kale. Waxaanu sheegayaa inaanu sharci ku joogin. Fallaartii ayaa wareegii bilaabaysa, waxaanay markan tuurayaan gabadh xagga hore taagan. Waxaa dadkii ka yaabinaya ninkii booliska ahaa oo isna aqoonsanaya nin xagga hore taagan, isaga oo sheegaya in lagu magacaabo Raul, oo uu xasuusto inuu xaaskiisa marar dhowr ah garaacay. Gabadhii kansarka ayaana weydiinaysa inuu hubo inuu isaga ahaa iyo in kale. Ninkii booliska ahaa iyo Raul ayaa sii wadaya hadal isku caddayn iyo isnaqdiyad ah. Halkii ay ka hadli lahaayeen waxa uu sameeyey ee uu boolisku ku aqoonsaday, waxaanay weydiinayaan in ay run tahay inuu xaaskiisa garaacay iyo in kale. Waxaanu dhahayaa waxa ay heshay wixii ay u qalmaysay. Wareegii ayaa bilaabmaya, isaga ayaanay tuurayaan. Intaas kadib, gabadha timaha cad ee xagga hore taagan ayaa dhahaysa waxa laga yaabaa inaynu halkan u joogno inaynu ogaano qofka xun iyo qofka wanaagsan. Balse wiilka garab taagan ayaa ku diidaya, isaga oo odhanaya waxa laga yaabaa in waxan ay meeshan oo dhan u joognaaba ay tahay in aynu kolba mid dilno, noolaha shisheeyana ay iska kee fiirsadaan. Balse ninka timaha dheer ee gadaal ka xiga ayaa hadalkii gabadha fasiraya oo odhanaya waxay ka wadaa inaynu isweydiino yaa u qalma in uu noolaado. Waxaanay dadkii isweydiinayaan waxa ay tahay inay ku bays-gareeyaan si ay u ogaadaan qofka nolosha u qalma, iyadoo wareegiina bilaamayo. Waxayna ka takhalusayaan markan gabadha muslimka ah ee xagga hore taagan. Ninka Maraykanka madowga ah ayaa soo dhigaya su'aal guux abuuraysa oo ku saabsan midab kala sooca iyo yasidda dadka madow, isaga oo ku doodaya in loo cadaalad sameeyo madowga. Dadkii caddaanka ahaa waxa ay marka hore sheegayaan in qolkan aanay cadaalad wax la yidhaahdaa ka jirin. Dadkii kale ee madooba ayaana ka codsanaya in aanu sii wadin hadalkaas, waayo isaga ayuunbaa naftiisa taargad ka dhigaya. Wiilkii koofiyadda gashana ayaa isna ku raacaya in jinsiyad ahaan loo sinaado maadaama uu isaga laftigiisu yahay Eeshiyaan. Balse su'aashaasi waxa ay fashilaysaa dareenka uu qof waliba ka qabo midab kala sooca iyo takoorka. Ninkii booliska ahaa ayaana hadalka qaadanaya, isaga oo iscadaynaya inuu yahay qof takoor aaminsan, nacay badanina u haya dadka madowga. Wareegii fallaarta ayaa bilaamaya, ninkii booliska ahaa ayaanay ka takhalusayaan. Ninkii askariga ahaa ayaana soo jeedinaya in aanay ka hadlin fikradahooda iyo waxa ay aaminsan yihiin isnacaybka iyo waxyaabaha la midka ah. Balse ninkii madooba ayaa ku diidaya oo sheegaya waa in wax walba miiska la keeno. Askarigii iyo gabadhii turjumaanka ahaa ayaana sheegaya in aan loo baahnayn in ay iyagu iska hor yimaadaan ee la rabo inay ka fikiraan hawshan haysata. Marka xiga ee ay codaynayaan waxa ay isku dayayaan in qof waliba uu isagu isku codeeyo, mana shaqaynaysa taasi. Waxa ay haddana isku dayayaan in qof waliba uu u codeeyo qofka ku xiga si qof waliba uu hal cod u helo, balse hal
qof ayaa laga takhalusaya waayo qof ka mid ah ayaa ka khaldamaysaa. Mar labaad ayaanay isku dayayaan inay ku celiyaan oo uu qof waliba u codeeyo qofka ku xiga, iyada oo gabadhii uurka lahaydna caawinaysa cunugta yar si aanay u khaldamin. Waxaa si kadiisa si isleeg loo dooranaya gabadhii uurka lahayd iyo nin gadaal ka xiga, waana in mar labaad cod lagu kala saaro. Ninkii ayaana laga takhalusaya. Wiilkii xagga daba taagnaa ayaa sheegaya inuu isagu u codeeyay ninka, waayo wuxuu arkayay isaga oo u codaynaya gabadha uurka leh. Wuxuuna tilmaamayaa sida geymka loogu talagalay in marka u dambaysa ay soo harayaan gabadha uurka leh ama cunugta yar. Wiilka timaha dheer ee gadaal taagan ayaana sheegaya haddii ay midkood ka takhalusaan gabadha uurka leh iyo cunugta yar, uu qof waliba markaas helaya jaanis wanaagsan. Wiilka gacanta la ayaa isna ugu jawaabaya haddii ay tahay inuu qof uun meeshan ka badbaado, waa in ay labadooda noqotaa. Ninka tayga cas xirnaa ayaana isna ka diidaya. Gabadhii kansarka qabtay ayaa sheegaysa in gabadha uurka lehi ay xisaabsan tahay 2 qof. Codayntii ayaa bilaamaysa, waxaana mar labaad isku xidhmaya 2 qof oo waxaa barbara noqonaya islaan duq ah iyo cunugtii yarayd, waxaanay tuurayaan islaantii. Wiilkii gadaal taagnaa iyo askariga ayaa ku doodaya in ay gabadha uurka leh iyo cunugta yar ay ilaaliyaan, balse ninka ookiyaalaha gashan ayaa doonaya bal marka hore inay ogaadaan waxa ay yihiin. Cunugtii yarayd ayaanu weydiinaya inay dugsiga ku fiican tahay iyo in kale. Qof ayaana gadaal ka odhanaya grade fiican ma keento ee ha la dilo. Codayntii ayaana bilaamaysa. Markanna waa barbaro kale oo waxaa isku xidhmaya gabadhii uurka lahayd iyo cunugtii. Nin gadaashooda taagan ayaana ku qaylinaya labadoodaba ha la wada dilo, balse isagii ayaa laga takhalusaya. Greg ayaa soo jeedinaya bal in ay jirto cid isxilqaamaysa si ay isku tuurto. Wareegii ayaanay fiirinayaan, balse cid mutadawwaca lama arkayo ilaa iyo uu wiil yari dhaho aniga ayaa isxilqaamaya. Waxaanay ku murmayaan dadkii in ay sababta uu isku dilayo weydiiyaan iyo in kale. Isna waxa uu ku sababaynayaa in aanu rabin inuu qofna dilo oo uu isagu isdilayo. Ninkii gacanta gona ayaa soo jeedinaya inuu yahay ilmo yar oo aanu caqligiisa ku filnayn oo aan laga ogolaan, balse ninkii tayga casaa iyo odaygii ookiyaalka watay ayaa ku khilaafaya oo weydiinaya wiilkii yaraa inuu arrinkaa hubo, balse nin gadaal taagan ayaa isxilqaamaya wiilka yar beddelkiisa. Marka ay fallaartii wareegu bilaabanto ayuuna goobadii casayd ka baxaya, sidaasna ku dhimanaya. Odaygii ookiyaalaha watay iyo ninkii garawaatiga casaa weli waxa ay raadinayaan in ay jirto cid isxilqaamaysa, balse iyagu ma rabaan in ay isxilqaamaan. Sidaa darteedna ninkii gacanta la ayaa soo jeedinaya in ay dhammaantood isxilqaamaan oo ay ka baxaan marka laga reebo gabadha uurka leh. Odaygii ookiyaalaha watay ayaa wiilkii yaraa weydiinaya inuu weli rabo inuu isxilqaamo iyo in kale. Marka wareegii fallaartu soo bilaabato ayaanu wiilkii yaraa ka baxaya goobaabtii casayd oo isna dhimanaya. Qof kasta markan waxa uu filayaa inuu yahay askariga qofka ku xiga ee isxilqaamaya, balse wuxuu u sheegayaa inaanu diyaar u ahayn oo uu naftiisa soo huray in ku filan. Imikana uu Afghanistan ka soo noqday si uu ula kulmo xaaskiisa oo aanu 2 sano arkin iyo wiilkiisa yar oo aanu weligii arkin. Waqtigu wuu isa sii guraya, waxaanay sugayaan qof kale oo isxilqaama. Gabadh gadaal taagan ayaana odhanaysa aniga ayaa mutadawwaca, iyadoo sheegaysa in ay wiilkeedii weyday oo dhowaan shil ku dhintay. Nin baadari ah ayaana ku sii sabrisiinaya in ay mar labaad la kulmi doonto. Ninka suudhka madow ayaana hadalkaas ku dhaliilaya. Marka ay ogaadaan inuu baadari yahayna waxaa bilaamaysa su'aalo ku saabsan dhanka diinta. Ninka suudhka madow ayaana sheegaya in hadda aanay halkan wax diin la yidhaahdaa ka socon, waxaanu ismuujinayaa inuu yahay atheist ama bilaadiin. Wuxuuna isku dayayaa inuu laynka ka helo dad kale oo bilaadiina, mana helayo. Fallaartii wareega ayaana bilaamaysa, waxaanu filayaa in markan ay isaga u wada codayn doonaan, balse isaga iyo gabar kale ayaa isku xirmaya. Gabadhii ayaana laga takhalusaya. Waxaanu sii wadayaa inuu kolba qof dhaleeceeyo isaga oo weydiinaya gabadhii timaha caddayd ee ku xigtay in uu garanayo iyo in kale, iyo in ay tahay gabadh shisha aflaanta xun. Waxayna odhanaysaa ma yihi, balse waa uu ku riixaya oo waa uu ku qasbayaa in ay tahay. Wareegii ayaana bilaamaya, isagii ayaana loo codaynaya oo dhimanaya. Iyadoo gabadhii timaha caddaydna ay ooyeyso, odaygii ookiyaalaha watay ayaa ka dalbanaya bal inay isweydiiyaan inta qof ee carruur leh iyo inta kale. Greg ayaana sheegaya in isaga iyo xaaskiisu ay leeyihiin gabadh yar. Odaygii ookiyaalka ayaana sheegaya in inta aan carruurta lahayn ay tahay in ay isxilqaamaan. Ninkii tayga casaa ayaa weydiinaya gabadh gadaal taagan inay carruur leedahay ama xataa la qabo iyo in kale, balse su'aashii isaga ayay ku soo celinaysaa iyada oo la ogaanaya inay tahay dadka laga rooraha ah. Isaga oo jawaabaya ayaana gabadh kale oo da'yar la tuuraya. Gabadhii ayaa iska warramaysa iyana oo sheegaysa in ay gabadh kale isqabaan, waxaana soo baxaysa in ninkii tayga casaa uu yahay nin necab dadka isku jinsiga ah ee isguursada. Codaynta xigta ayaana isaga lagaga takhalusaya, waayo waxa ay u arkayaan waxa uu ku hadlayaa in ay qalad tahay. Ninkii timaha dheeraa ayaa dadka weydiinaya waxa dhici doona marka ay 2 qof isku soo hadhaan, miyaanay barbara noqonayn. Wiilkii gadaal taagnaa ayaana sheegaya in ay noqonayso inay iyagu isku tanaasulaan oo aanu midkood codaynin. Wiilkii gacanta gona ayaana sheegaya inuu isagu tanaasulayo haddii ay sidaasi ku dhacdo. Islaantii kansarka ayaana soo
soo jeedinaysa inay iska soo saaraan qof ay ku kalsoon yihiin oo go'aanka saxda ah gaadhi kara, balse gabadhii turjumaanka ahayd ayaa sheegaysa in aanu jirin qof lagu kalsoonaan karo. Ninkii timaha dheeraa ayaana sheegaya in qof kasta go'aankiisa qaato. Gabadhii timaha caddayd ayaana weydiinaysa haddii arrintu labadooda ay isugu soo biyo shubato. Dhakhtaradii ayaana odhanaysa iyaga ayaa iskala go'aaminaya. Codayntii ayaa bilaamaysa. Dhakhtaradii iyo ninkii ay isgaranayeen ayaana isku xidhmaya, labadoodiiba waa ay wada dhimanayaan. Ninkii timaha dheeraa ayaana ku qancinaya inay iyagu iskala saaraan labada qof ee isku xidhma ama ay labadooduba wada dhintaan. Laakiin askariga ayaa u malaynaya in ninkan timaha dheeri oo uu qof kasta ku riixaya in loo codeeyo gabadha uurka leh iyo cunugta oo uu meesha ka tuuro. Greg ayaana weydiinaya balka ay dooranayaan gabadha uurka leh iyo cunugta yar. Kadib odayga oo kiyaalaha gashan ayaa weydiinaya gabadhii uurka lahayd bal waxa ay ka shaqayso, iyadoo ay dhammaantood u arkaan inaanay su'aashaasi munaasib ahayn, balse waxa uu ku andacoonayaa inay muhiim tahay in la ogaado cidda bulshada waxtar u leh. Turjumaanadii ayaana odhanaysa waxa hadda muhiim ah in ay gabadhani xaamilo tahay. Odayga oo kiyaalku waa uu saluugsan yahay gabadha uurka leh. Codayntii ayaana bilaamaysa, waxaana dhimanaya ninkii koofiyadda gashanaa. Ninkii gacanta gonaa ayaa weydiinaya ninka oo kiyaalaha waxa uu isagu qabto, waxaanu ugu jawaabayaa inuu yahay baankar, bulshadana uu wax badan taray, isaga oo dadka kale dhaliilaya, balse turjumaanadii ayaa khadka ka baxaysa. Markan dadka badankoodu waxa ay filayaan in ninka Meksikaanka ahi noqon doono qofka ku xiga, balse wiilkii gadaal taagnaa ayaa sheegaya in dadka hal dhinac ay dileen turjumaanadii maadaama aanay marna u codaynin gabadha uurka leh iyo cunugta yar midna. Waxa bilaamaysa iskooxaysi, waxaanay bilaabayaan inay isku tirsadaan laba dhinac iyo inta qof ee rabta in loo codeeyo gabadha xaamilada ah iyo cunugta yar iyo inta aan rabin. Codayntii ayaa bilaamaysa, cunugtii iyo ninkii Meksikaanka ahaa ayaana isku xidhmaya. Isaga oo eegaya waxa meesha ka dhacaya ayuu naftiisa u huraya cunugta yar oo waa uu istuuraya. Odaygii oo kiyaalaha watay ayaa dhaleecaynaya askarigii isaga oo ku biiraya kooxda rabta in la dilo xaamilada iyo cunugta. Isaga iyo ninkii timaha dheeraa ayaana xananaya ninkii madooba iyo labadii lamaanaha ahaa in ay dhinacooda noqdaan. Codayntii ayaa bilaamaysa, markanna waxaa isku xidhmaya cunugta iyo odaygii oo kiyaalaha watay. Ninkii madooba iyo ninkii timaha dheeraa ayaa soo jeedinaya in ay daayaan, labadooduba ha dhintaane, balse odaygii oo kiyaalaha watay oo keliya ayaa dhimanaya, sababta oo ah gabadhii xaamilada ahayd ayaa beddeshay codkeeda. Waxaanay ogaanayaan in ay iyadu ka dambeysay arrinkaas, balse waxa ay ku jawaabaysaa in aanay codkeeda beddelin, laakiin aanay codaynba. Ninkii gacanta gonaa ayaa sheegaya in ay wada og yihiin in ay dhammaantood wada dhimanayaan, balse ay fiican tahay in ay si sharaf leh loo dhinto. Greg ayaa sheegaya inuu u jeedo inay cunugta yar dhimato oo gabadha uurka leh ay ugu dambayn soo hadho. Ninka timaha dheer ayaa isku dayaya inuu ku soo jiido gabadha timaha cad kooxdiisa, balse marka uu ku guul darraysto waxa uu soo jeedinayaa in ay u codeeyaan ninka gacanta go'an si ay isku leekaadaan una helaan xoogaa waqti ah oo ay ku wada hadlaan xalna u gaadhaan. Waxaanay u codaynayaan ninkii gacanta gonaa. Marka xiga waxa ay isku dayayaan inay ogaadaan kooxda aqlabiyadda leh iyo kooxda kale. Askarigii ayaa soo jeedinaya in gabadha xaaska ah loo codeeyo si loo tijaabiyo ninkeeda oo haddii uu rabo inay badbaado uu kooxdiisa ku soo biiro, balse ilbiriqsiyada u dambeeya Greg ayaa codkiisii beddelaya. Sidoo kale askarigii ayaa odhanaya waxaynu u codaynaynaa ninka madow. Kadib marka uu dhinto, ninka timaha dheer ayaa aad uga cadhoonaya Greg, kuna odhanaya waxa laga yaabaa in aydan si rasmi ah isu qabinba, iskuna dayaya inuu ka hor keeno dadkii kale. Dhammaantood waxay bilaabayaan inay lamaanayaasha su'aalo weydiiyaan, balse xaaskiisa ayaa fashilmaysa marka gabadhi weydiisa magaca ninkeeda oo xataa ma xasuusato wixii uu sheegtay markii hore. Kadibna Greg ayaa isku soo rogaya oo ku eedaynaya inay iyadu keentay fikirkaas ah inay isqabaan, balse isagii ayay dilayaan. Xaaskii beenta ahayd ayaana sheegaysa in aanay laakiin ka been sheegin ilmihii ay sheegtay iyo in la qabo. Ninkii timaha dheeraa ayaa qof walba xasuusinaya in ay dhammaantood yihiin dilaa, balse waxa uu u ballan qaadayaa gabadhii xaaska sheegatay in uu badbaadin doono haddii ay kooxdiisa ku soo biirto. Waxaanu weydiinayaa odaygii duqa ahaa dhinaca uu raacsan yahay, balse uma jawaabayo. Waxa uu ka codsanayaa gabadha ku xigta inay dhankiisa soo raacdo isaga oo ku jeesjeesaya arrimaha qoyskeeda. Codayntii ayaa bilaamaysa, waxaana markan isku xidhmaya 5 qof. Ninkii timaha dheeraa, askarigii, islaantii kansarka qabtay, naagtii timaha caddayd iyo naagtii lagaroonaha ahayd. Kadibna waxaa ka soo hadhaya ninkii timaha dheeraa oo keliya marka dib loo codeeyo. Odaygii baadariga ahaa ayaana ilmaynaya isagoo ninkii timaha dheeraa khidadiisa sii wata ayaa waxa uu codkeeda weydiisanayaa xaamiladii, waxayse odhanaysaa maya. Wiilkii gadaal taagnaa ayaa isna dhankiisa ka soo gelaya khidada. Odaygii baadariga ahaa ayaa saamaxaad weydiisanaya gabadhii uurka lahayd, kadibna khadka ka baxaya. Wiilkii gadaal taagnaa iyo ninkii timaha dheeraa waxa ay xaqiiqsanayaan in ay u baahan yihiin in ay khidada wax ka beddelaan. Sidaa darteed ninkii timaha dheeraa ayaa soo jeedinaya in uu xaamilada iyo cunugta yar mid tuuro, isna uu tuurayo xaaskii beenta ahayd. Waxa bilaabatay codayntii, waanay wada
codaynayaan dhammaantood marka laga reebo odaygii duqa ahaa. Marwadii ayaana dhimanaysa. Ninkii xagga dambe taagnaa ayaa sheegaya in aan odaygan duqa ahi marna ka qayb qaadanin codaynta oo uu isagu sababay inay arrintu halkan soo gaadho. Ninka xagga dambe taagan iyo ninka timaha dheer ayaa ku murmaya arrinta odayga, isaga oo ninka timaha dheeri u malaynaya in qof waliba uu codaynayo odayga duqa ah si uu u dhinto. Laakiin wiilka gadaal taagan iyo gabadha uurka lahi waa ay isfahmayaan cidda ay u codaynayaan, waxaanay ka takhalusayaan ninkii timaha dheeraa. Hadda 4 qof oo keliya ah ayay ku soo harayaan. Iminka waxaa khasab ku ah in ay u codeeyaan odayga duqa ah, waayo ma haystaan xal kale. Odaygii baana dhimanaya. Hadda wiilkii gadaal taagnaa waxa uu la soo hadhay gabadhii uurka lahayd iyo cunugtii yarayd, waxaanay isweydiinayaan sababta waxaan oo dhammi ay u dhacayaan. Waxa uu sheegayaa inuu u malaynaya inay aliens isku wadaan tijaabo oo ay ku imtixaamayaan si ay u ogaadaan sida uu bini'aadamku yahay iyo sida ay wax u qiimeeyaan. Gabadhii uurka lahayd ayaa weydiinaysa sababta ay aliensku u dili waayeen inta ay ku qasbayaan in iyaga midba mid dilo. Wiilkii ayaana ugu jawaabaya waxa ay tijaabadan ka ogaanayaan sida aynu isku xukmino iyo sida uu bini'aadamku isku kala qiimeeyo. Kadibna waxay ogaanayaan sida aynu u fikirno. Kadib wiilkii ayaa u sheegaya labadii gabdhood inay iyagu isku tanaasulaan oo ay midkood dhimato. Cunugtii yarayd ayaa ooyeysa, waayo iyada ayaa go'aansatay inay nafteeda u hurto gabadha uurka leh iyada oo eegaysa ilmaha caloosha ku jira. Wiilkii ayaana u sheegaya cunugta in iyada iyo isagu ay hal mar wada dhintaan oo ay goobada cas ka baxaan, balse isla marka ay ka soo baxayso goobaabta ayaa waxa uu u codaynayaa gabadhii uurka lahayd inay dhimato. Gabadhii iyo cunugtiina dhulka ayay ku wada dhacayaan, balse waxba isma bedelayaan oo halkii ayuu keligii ku xanibnaanaya. Waxaana bilaamaysa codayn kale, isaga oo ku qaylinaya alienskii, moodayana inay kolleyba dilayaan isaga oo aan codaynaynin. Balse marka ay istaagto fallaartii wareegu, waxa uu arkayaa in isaga iyo ilmihii uurka ku jiray ay isku xidhmeen, ayna tahay inuu mid u codeeyo isaga iyo cunuga midkood. Wuxuu u codaynayaa ilmihii yaraa ee caloosha ku jiray. Kadib waxa uu ku miirsanayaa isagoo bannaanka jiifa, korna u eegaya spaceshipkii. Marka uu istaago waxa uu arkayaa in spaceshipku aanu ahayn mid keliya ee ay yihiin qaar badan. Marka uu arko dadka kale ee ka soo badbaaday spaceshipskii kale, waxa uu arkayaa in ay u badan yihiin carruur yaryar, dumar uur leh iyo odayaal waaweyn. Wuxuuna isweydiinayaa in laga yaabo inuu sameeyey go'aano danaystanimo iyo in kale, balse waxa uu la ciyaaray khidad cajiiba qof kasta oo ku dhex jiray qolkiisii si uu u noqdo qofka ugu dambeeya. Waxaanu og yahay natiijada ugu dambaysa, taasoo ah inuu naftiisa badbaadiyo. Fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay nagu soo biir, sidoo kalena